Nabadey saaxiibayaal, waxaa laga yaabaa inaad aragtay kaamirooyinka loo yaqaan CC camera oo noocyo badan ah oo aad u fara badan leh, kuwaas oo loogu talagalay in lagu duubo waxyaalaha xatooyinka ah. Laakiin muuqaalkan waa ku duwan yahay kaas. Waxaa la soo saaray kaamira sheegi doonto aariyada qofka ka timaada ay sheegi doontaa. Cajiib. Kaamiradaasi waxaa la soo saaray goor dhaweyd ama isbuucan gudihiisa ayaa la soo saaray, tijaabo ayay ku jirtaa. Kaamiradaas ay ka duwan tahay kaamirooyinka caadiga ah ee aad taqaanay, iyada waxay ilaalin doontaa dadka aariyada badan. Tusaale kale, kaamiradan waxaa loogu talagalay in lagu xiro xafiisyada oo kale iyo goobaha waxaa loo yaqaano madaxda ay joogto oo kale. Kaamiradaas marka waxa ay soo saari doontaa ayaa la leeyahay qofka aariyada sii daaya oo kale. Kaamiradan ujeedka loo soo saaray markii aan baaray waxa ay noqotay in meelo badan ogeysiisyo la dhigay iyo warqado lagu qoray oo liiri laguma aariyoon karo in dadku dhig jalaq u sii waayeen. Waxay noqotay marka in ganaax inta laga soo saaro kaamiradaasna loo sameeyo qofkii sameeyo oo lagu qabtane in qofkaasi lagu ganaaxo lacag aad u fara badan. Runtii kaamiradan waxa ay noqonaysaa kaamira runtii aad u cajiib badan, taas oo soo saari doonto qofka aariyadiisa. Tusaale kale, halkaan oo kale lagu xiri doonaa haddii qofka si uu iska taagin uu aariyo sii daayo kale, isla sidii ay u muuqataa aariyada iyadoo bixis ayaa la arkayaa. Muuqaalkan ayaana kugu tusayaa kaamiradaas ayaa soo baxday runtii oo aad iyo aad u cajiib badan. Waxyaalaha la yaab kale ee kaamiradan wadato waxaa ka mid ah sensories aad u fara badan oo awood u yeelanaya inay kala saarto aariyada iyo waxaan aariyada ahayn. Marka koowaad horta ila daawo muuqaalka qaabka ugu horeeya ama ay duubtay si uu ekaay. Cajiib. Hadda waxaan is leeyahay waxaad aragtay muuqaalo la yaab leh oo runtii dad taagan laami ama goobo kale oo ganacsi oo ay sii daayanayaan ama ay kasii baxayso aariyada. Kaamirada marka waa ay fasilaysaa sababtoo ah waxa ay soo saaraysaa waxyaalo fara badan. Kaamiradan ayaana noqonaysa kaamirada runtii suuqa goordhow soo geli doonto laguna adeegsiga badnaa doono, sababtoo ah xafiisyo badan iyo shirkado badan ayaa taag u waayay aariga urteedu aad u badan tahay, taas oo aan la waayay qof loo qabsado. Waa cajiibe. Tiknoolajiyaddu maalin ka dambeyso ay isbedelaysaa, heer waxa ay sii maraysaa nolosha caadiga ah ay la soo falgasho. Kaamiradan waxa ay awood u leedahay sensor fara badan, laakiin weli waxaa lagu guuleysan layahay in kaamiradan ay sheegto qofka wejigiisa oo saxda ah. Kaliya waxay qaban doontaa humaaga qofka iyada oo sensorada ku xiran awood ay u leeyihiin inay soo saaraan qofkani aariyada intii ka baxday iyo intii ay taaba. Waxyaalaha cajiib kale ee kaamiradan ay leedahay waxaa ka mid ah qofka isticmaalaya ama tusaale kale hadda adiga soo gadato xafiiska aad soo dhigato, fariin ayay kuu soo diri doontaa markii aariya ay dhacdo kale. Tusaale kale 20 qofood qof ka mid ah hadduu aariya sii daayo kale, fariin ayaa kuu soo dhici doonta oo lagu dhihi doono hebel aariya ayuu sii daayay. Markaas ayaad waxa ku talageli doontaa inaad sii diyaarsato waxyaalihii carafta ahaa ee aad ku carfaysan lahayd xafiiskaaga ama goobtaada. Cajiib. Runtii dad badan ayaa fashilmi doona, bal muuqaalal kale oo laga soo duubo aan mar kale ku tusay la daawo. waa hagaag. Cajiib ayaan leenahay. Runtii dunidanu isbedelo badan ayaa laga sameynayaa. Adiga hadda muuqaalkan daawanaya aragtayna kaamiradan cajiibka badan, maxaad is leedahay haddii Soomaaliya la keeno? Meeqa qofood ayaa fashilmi kara? Ka waran fikirka ahaantaada qaybta hoose commenting nala soo wadaag. Bal ka waran maxaa dhici kara haddii inta Soomaaliya la keeno xafiisyo badan lagu xiro la ogaadane dad badan aariyadooda. waad ku mahadsantahay muuqaalkan daawadashiisa. Runtii ani ahaan muuqaalkan waxaas dhahay saaxiibadaada la wadaag si bal wax badan ay u ogaadaan tiknoolajiyadda halka ay marayso. La wadaaga saaxiibadiina adoo share gareynaya si aan u helno saaxiibo adiga oo kale ah. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Waxaan ku leeyahay tiknoolajiyaddu ay socotaa, aariyadaada meelaha qaar aad ku sii deynayso iska ilaali si uu kuu soo qaban faar. Guul wacan ayaan kuu rajeynayaa.